وهاجاك daawadayaal wali barnaamijka toddobaadka wararka ayaynu ku guda jirnaa markaasi dhacay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeedna wuxuu digniin adag u diray dadka markaasi xukunka u aada maleeshiyaadka al-shabaab taliska booliska Soomaaliyeedna wuxuu soo saaray digniin adag oo ku socota ganacsatada la macaamiisha ururka al-shabaab gaar ahaan kuwa loogu yeero oo ugu taga deegaanada ay ku sugan yihiin kooxda taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Xijaar oo shir jaraa'id ku qabtay caasimadda Muqdisho ayaa sheegay in ciidamadii howlgalka ka fuliyay deegaanka Basra ee halkaas ugu tageen ganacsato ay ugu yeertay kooxda sidoo kale taliyaha booliska ayaa ballan qaaday ganacsadihii loogu yeeraa goobaha ay maamulaan ururka al-shabaab haddii uu soo sheego inay ammaankiisa ay sugi doonaan haddaba waa kan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Xijaar oo arrimahaasi ka hadlaya sidaa ka warqabtaan waxaan rabaa inaan digniin u mariyo ummadda Soomaaliyeed inay ku halligmin inay aadaan meelahaas inay ku halligmin maxaa yeelay wixii khasaare soo gaaray hadhow naf iyo maal meel aan waxba jirin ninkii inta looga yeero aada intuu aadaya waxa loo qaatay isagoo u soo sheegay ciidamada amniga oo yiraahdo halkaas aniga layga yeeray saasaa jirta ninkaas ay soo wacay teleefonkana laygu soo wacay kadibna ciidamada amnigu ay amnigiisa ilaaliyaan ma aha in la aado ninkii aada oo aanu ku ogaano kuwa badan hadda waanu ka warqabnaa ninkii baabuurka ijaaro dadka qaadow iyo kuwa u yimaado dadka u yeerow kulli waxaanu ognahay dad badan oo ku lug leh